halkani waa BBC London. halkani waa BBC London oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 9 iyo 10 iyo 9 iyo 40 bithir band iyo FM-yada Afrikada Bari iyo internetka oo dunida oo dhan aad dagala xidhiidhaan. akhyaartana dhageysatay ummadda Djibouti maanta waxa ay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 12aad ee ka soo wareegtay maalintii ay dadka reer Djibouti gobolnimadooda hantiyeen ee ay ka xoroobeen xukunkii dheeraa ee Faransiiska. dalka Djibouti oo dhan maanta waxay u ekayd maalin ciida. haddaba waxa aan dib idin celinayaa 34 sannadood. waxaynu wada tegaynaa magaalada Paris oo uu markaasi joogay wafdi ballaaran oo gobolnimada Djibouti kala xaajoonayay dawladdii Faransiiska ee xilligaasi dalka xukumaysay ee uu madaxweynaha ka ahaa Valéry Giscard d'Estaing. wafdiga Djibouti waxaa hogaaminayay madaxweynihii ugu horreeyay ee xukunka dalka qabtay Allahu naxariisee Xasan Guuleed Abtidoon. wafdigaasi ballaaraa ee magaalada Paris joogay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha haatan ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. anigoo muddadaasi dhalinyaro ah waxa aan muddadaasi wada hadalladii ka socday magaalada Paris uga soo waramayay laantan af Soomaaliga ee BBC-da. haddaba raggii aan muddadaasi kula kulmay magaalada Paris ee aan ka waraystay sidii ay wada hadalladu u socdeen amba u dhacayeen waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistee Idriis Faarax Bane oo markii dambe noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dalka. marka waraysigaasi waxa uu u dhacay sida tan. akhyaartana dhageysatay sidaanu shalay baa idiin sheegnay maalintii Khamiistii waxaan magaalada Paris ku waraystay ragga madaxda u ah xisbiga gobonnimo doonka ee Djibouti ka dhisan ee uu madaxda u yahay Mr. Xasan Guuleed Abtidoon. raggaas oo haatan jooga magaalada Paris oo subaxdii Khamiistii wada hadal la yeeshay ministerka dawladda Faransiiska uga qaabilsan dalalka dibadda ee uu Faransiisku xukumo oo la yiraahdo Monsieur Oliver Stern. markaasi wada hadalkaasi sida uu dhacay iyo arrimihii laga wada hadlay waxaan ka waraystay ninka la yiraahdo Mr. Idriis Faarax Bane oo xisbigaas uga qaabilsan arrimaha siyaasadda. haddaba Idriis Faarax waxaan weydiiyay bal inuu nooga warramo sidii uu u dhacay wada hadalkii ay maalintii Khamiistii la yeesheen ministerkaas Faransiiska uga qaabilsan dalalka dibadda ee Faransiisku oo xukumo iyo arrimihii ay ka wada hadleen. waxaanu ku jawaabay maalintii Khamiistii waxaan aragnay waa run ninka wasiirka mustacmaraadka in waftigii aan ka mid ahaa ee Djibouti ka yimid Xasan Guuleed oo madaxa anagoo idil wuxuu ninkaasi nagu qaabilay isaga oo ku hadlaya magaca xukuumadda Faransiiska oo dhan. waayo waxa jirtay inaan dalbanay markii aan nimidba inaan aragno isaga kaga qabo prime ministerka iyo madaxweynaha oo saddexdoodaba si taagan u hordhigno inaan u socono dalka iyaga xorriyadiisi. marka halkii sida ahayd waa la soo ururiyay waxaanu nagu qaabilay ninkaasi uu yiri wasiirka mustacmaraadka oo qura inaguma arkaya waxaan inagu arkayaa magaca xukuumadda Faransiiska in wixii uu nalahaana waanu dhageysanay. wuxuu ninkaasi nagu horreysiyay oo hadalkiisii aan ka soo guntay kamid ahaa in waxa aan ku falayno waxa tan xorriyad la yiraahdo. waxaan ugu jawaabnay ay jawaabtii ahayd xorriyadda waxaan awalan u doonaynaa sharaftayada, waxaan u doonaynaa madax bannaanaantayada, waxaan u doonaynaa nabadgelyadayada, waxaan u doonaynaa nolosha ummadayada iyo buqcaddan Afrika kaga naalo nabadgelyadeedaan u doonaynaa baan ku nidhi. haddii aan u sii dhaafnay waxaan kale oon ku nidhi waxaan u doonaynaa xorriyadda waxa aad ininku haddaad Faransiis tihiin xorriyadda u haysatiin oo mid ah ayaan u doonaynaa. waayo waxa xorriyad la yidhaahdi shacbina ma koriso shacbi kalena ma disho sida aad ininku ugu nooshihiin baanu jecelahay inaan ugu noolaanaanu ku nidhi. marka dhinaca kale uga leexday wuxuu yidhi waad iska quman tahay laakiinse xeer baanu leenahay xeerkaan leenahay wuxuu dhigayaa waxa food la yidhaahdo waxa referendum la yidhaahdo. marka waxaad sugi kartaan markuu food jiro inaad xorriyadiinii aqlabiyad noqotaan markaana xorriyadiinii halkaa ku qaadataan annaguna
dariiqa xorriyadda haddii loo soo maro maanu dudanin buu afka ka yidhi in mahmaadii Soomaaliga ahayd ee oranaysay dawacaad tidhi reer aan ogaay ma guuro isagoo og dadka madax lagu sheego loo magacaabo isagoo og wixii magaca referendumka loo baxshay 760kii sidii uu dhacay oo ahaa in doortay anaana ku dhamay anaana ku dhigay ahaa in ayuu haddana carabka ku dhiftay uu yidhi waxaan nahay dad dimuqraata wixii waxaad ku qaadan karaysaan food waxay jawaabtii noqotay oo naga celinay food dalkayaga kuma noolaan doonayo inkoo Faransiisi haddii aad dhinac kasta u daydaan oo isku badaydaan inaad ku noolaysaanna horaad u disheen oo ma noolaan karayo ama amarba uma ad haysataan baan ugu jawaabnay hadaladii halkaan ku soo qaadnay waxa kamid ahaa sida isbaan ku nidhi te wax dhintay waa laga hadhay waxa